Hordhac marka loo eego aqoonta aan u leeyahay koriimada carruurta, waxaan akhriyay oo suuqana ku arkay buugag badan oo ilmo korinta ku saabsan. Sidaa oo ay tahay, ma aan arag buug u qalma bulshadayda Bariga Afrika ka timid iyo baahiyaha ilmo korineed ee Soomaalidu hadda u baahan tahay. Buugani waxa uu diiradda saarayaa caqabadaha waalidiinta bulshada Bariga Afrika ka timid, gaar ahaana Soomaalidu ay kula kulmaan qurbaha, iyada oo si gaar ah loo xusayo qodobo asaasi ah oo ku saabsan Islaamka iyo baahiyaha ilmaheena qurbaha. Haddii aad tahay waalid ama xanaaneeye, macallin iskuul, macallin dugsi quraan, macallin xilliga iskuulka kadib ilmaha waxbara ama tababare, iyo haddii kaleba, buugani waa uu ku anfacayaa. Sannado badnaa oo aan la shaqaynayay waalidiin iyo carruur ayaan ka kororsaday ogaanshaha baahiyaha bulshadayda iyo sida waalidiinta Soomaalida ahi ula halgamayaan sidii ay ilmahooda biyadan cusub ugu korin lahaayeen. Waxbarashada waalidiintani u baahan yihiin waxaa la yiraahdaa ilmo korin waalidnimo, taa oo aan ogahay in badan oo saaxiibadayda Soomaalida ahi ay dood ka keeni doonaan maadaama ay aad ugu wareeraan. Marka kali ah ee ay maqlaan arrintani waa marka hay'adda badbaadada carruurtu Child Protection Agency ay albaabka ku soo garaacdo. Waa aan ka xanaaqi jiray marka aan maqlo hay'adda badbaadada carruurta oo doonaysa inay carruuro ka xilwareejiso waalidiin inay aad u wanaagsan yihiin aan ku aqaan. Aniga oo ku dhex jira waxbarashadaydii jaamacadeed ee koriimada carruurta ayaan bartay in uu jiro habraac dhan oo ka horeeya inta aanu sargaal ka socda hay'adda badbaadada carruurtu qof gurigii soo faragelin. Waxa aan go'aansaday in aan mowduucan ilmo korinta si fudud, ku habboon, afkoodana ku qoran ugu soo bandhigo waalidiinta Soomaaliyeed. Buugani xal buuxa u noqon maayo dhibaatooyinka Maraykanka ama dal kale ku haysta waalidiinta Soomaaliyeed iyo ilmahooda, ee ujeedku waa in uu kor u qaado wacyiga laga qabo arrimaha hadda ka taagan ilmo korinta, soona gudbiyo qodobada aasaasiga ah ee ku saabsan ilmo korinta dhaqanka Islaamka ku salaysan, iyo in uu sidoo kale muuqaal guud ka bixiyo fikrado saldhig u ah ilmo korinta. Korinta ilmuhu waa mas'uuliyad wadareed oo waa tan la yiraahdaa degmo dhan baa dhallaan korisa, it takes a village to raise a child. Buugani waa sida ogol qalab kala duwani ka buuxo, kaa oo hadba mowduucyada aad u baahan tahay ka adeegsanayso xilliga aad u baahato. Waxaan doonayaa in aan intii suuragal ah ilmo korinta ka dhigo mid loo bogo oo dheefteeda loo hanweynaado. Qodobada mowduucan ku saabsan ee buugani ka hadlayo waa kuwo si ula kac loo soo xulay maadaama ay yihiin kuwo in badan lagu hadal hayo Soomaalida dhexdeeda.